بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee dhiigga Soomaalinimadu uusan ka dhamaanin uusan ka dhiman dareenka wadaniyadu waxaan idinku salaamayaa salaan dareen wadaniyadeed xambaarsan waxaan meeshan ku duubayaa oo rabo inaan bulshada Soomaaliyeed u gudbiyo inteeda dhiigga Soomaalinimadu uu wali ku laaban yahay gabay magaciisa la yiraahdo ay dharaarciyay gabaygani wuxuu quseeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu gabaygani ku soo beegmay xilli uu booqasho u tagay magaalada Jigjiga oo kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee gumaysiga Abasiiniya oo muddada dheer haystay bulshooyinka Soomaaliyeedna in badan ay naf iyo maal u soo hurtay dadka Soomaaliyeedna muddo dheer u soo dhiman hayay marka qaybta labaad gabaygan dhaalayda qaybtiisa hore waxay dhageyso maqalkana wuxuu noqon hayaa ay dharaarciyay haddaba Soomaaliga dhabtoo bal dhageyso ay dharaarciyay idageysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega idageysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega dhowr sano horteed bayaad dhaartiyan furay dhalayda markan curinayen dhibay magaceeda ma dhammaynin qaybaana dhiman waanigi dhahay ma dhammaynin qaybaana dhiman waanigi dhahay mar haddaan dhudii hore tiriso way dhaxdaana taalo oo weli dhibkan uu alifee dhaliyey muuqdo ma dhexgalaya meel kale anoontaa dhammaystirine dhiil buuxda weyon beriba qaar ka soo dhuuraane dhab u maqal dhegaystow tanina waa ay dharaarciyay dabu maqal dhegaystow tanina waa ay dharaarciyay xasan sheekh inuu yahay dhimaadadu dhimir liita iyo qofan dhannayn oo aqliga dhaawac kaga yaallo dhaqan lumis inuu yahay dulliyo weliba dhandhaana dhaqdhaqaaqyadiisii horey dhabuga muuqdeen dhaqdhaqaaqyadiisii horey dhabuga muuqdeen shakhsigay dhegaystow markaad dhuuxda hadalkayga dhaliilaan saariyo aniguusan dhibca u siiyey dheeraad barbaa ku ah waxaadan iba dhihi doonin adba waad ka dheexani hadeer dhibadu galay adba waad ka dheexani hadeer dhibadu galay isagoon si isu dhelitiran dharnabou soconin oo kala dhinayo waqii aan dhammays noqonin ogaadeen ya dhoofku ku tegay dheehu kaga duulye eegana mid kale oo dhinayd yaan dhambaalayaye wuxuu inuu dhimad yahay siyan kaga dhadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne mayd dhinto masiixiyo qabrina lagu dhowaynayo dhancadiyo hadday noqon lahayd dinta lagu dhaato labadaba kuwii uga dhowaa dhigna ugu yiilay dhalashana ka xigay oo nidaam dhaqanna raacaya ay dhinacya joogaan siyay dhihi lahaayeenba inta uu dhammaan uga hormaray oo u wada dhaafay waajib dhaba siduu gudan rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabarka goday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhar la daawaniye waajib dhab ah siduu gudan oo rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabarka goday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhar la daawaniye waa wixii sujuudda oo la dhacay dhar la daawaniye markaasuuna meel kaga dhacay oo diintii dhaawacaye mid kalena dhegaystow siyan kaga dhaadhiciyo dhegta furo haddaan ku dhibceeni oon dhambaalayaye madaxweynayaal toban dhannaa ma dhowaynayey oo midiba kursiga dhar qabto uu dhulkaani yeeshay
ayagoon xilki dhiriq marmarin oon dharqaan dhabannin oon diinta meel kaga dhicin oon dhaqanna ceebaynin oo sharaftii guud ee dhulkiiyo tii dadkaaba dhowray dharkooduna nadiif yahay hortii dhaafay baa jiraye mid ku dhacayna malahayn asagu dhiiqadu galay mid ku dhacayna malahayn asagu dhiiqadu galaye tu kalena dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo lixdankii xeerkii la dhigay oon dhimanine jooga qodba lagu dhex daray oo weliba dhad macuulusaystay wax kastaba hadduu dhaco inaan dhalan rug loo yeelan oy lama dhaqaajan yihiin loogu dhigay buugga dhulka iyo xuduudiyo dadkana dhabuu qusaynayey oo aadna loo dhuujiyey oo dhowr ahaa jiray dhammaan way tixgeliyeen kuwii dhaafay ee horaaye ragga hore wuxuu dhinac mare uu ku dhici waayey asagaa ku dhiraday inuu wada dhex qaadaaye asagaa ku dhiraday inuu wada dhex qaadaaye mid kalena dhegaysto wadan ku dhex gaalayaaye soomaalida dhammaanteed ayada oon la kala dheegin cadowga dhabta ay leedahay dhax la diriiraysay weligeedna ay soo dhextil godobta dheeraatay dagaal dhiigga layskaga qubo dhacaya mooyaane annabadii abidkood dhex marin dhaara lee heshiinin madaxdii hortii dhaaftay ee uu dhulkaani yeeshay dhammaantood inay xabashi tahay kama dhan sarrayne kulligoodna way isugu dhaceen dhilada horaae kulligoodna way isugu dhaceen dhilada Itoobiya way isugu dhacayaan kulligoodna way isugu dhaceen dhilada horaae hayeeshee isagu tama dhugan waa dhurwaa falan daldan oo xora dadkiisu xilkii uu wada dhiibtay sharaftii dhulkiiyo tii dadkee dhabarka loo saaray war dhandhankan waalani inuu dhowra garan waaye dhandhankan waalani inuu dhowra garan waaye mid kalena dhegaystow haddaan ku dhibciinayaaye ninku inuu dhamaas yahay si aan kaga dhaadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne dhanaan iyo dhasheg waama iyo dhoobka xamar weyne ma soo kala dhawaysta midii aan dharaartagaba waxaan oogu dhelmani inay tahay dhulkaygiiye asagaa ka qawan oo dhanka aan dharnow qabine wax dhig cadiifiye qalbiga uga dhex buuxaaye weli dhabarka waxa ugu raran dhil qabyaalada inii uu dhigga yahay siyaan kaga dhaadhiciyo idhegayso waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne wareer dhama u liita ritigii uu u diray dhanka ay ka dhur sugayeen biyaha inuu u soo dhelmo maruu soo dhow yahay oo u jiro mala dhawa gaaban dhanka oo la seexday intuu dhilihii jabiyey iska daa wax wel lagu dhoqo dhari bisleeyay ama uu dhallano mana qarki dunyada asagoon dhudhuun wadin biyood soo dhex gaalay reerka xasan sheekh sidaasou dhaceen dhaqamadiisuye xasan sheekh sidaasou dhaceen dhaqamadiisuye inii uu dhigga yahay waxaan kaga dhaadhicini dhulka uu mataleesu yahay dhoolkii madaxweyne yay dhinac ka soo geli jigjiga oy dhexda u taale haddii uu ku dheelmaday habeen amuu dharaar booqday ha noqdeen dhabcaal cadow dhistay oo la isku dheerayne maamulku ugu dhex tegay ayada ee dharkou xidhayey shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex gudbaynayey shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex gudbaynayey waa la wada dhegaystaye sidii uu warkou dhigayey
shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karaba cidi ka dhowraynin dhammaanteedna soomaali weyn dhaawac culus tartay oo dhumiyey taariikhdii hoos dhiibay baa jiray sheekada qofkii dhuwan kareen eraygu dhaafaynin ayadana dhagaystow si aan oga dhaadhiciyo dhagayso haddan ku dhibcin ontaana ku dhigiye shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex qudbaynayey dhammaan erayadiisii markaan dhuuxnay nuuxurkoodii dhaantada kuwii ugu tumee kuna dhowaynayey uma dhicin dhul soomaaliyeed inay dhex joogaane dhammaan erayadii uu dhihiyo hadalladu dhiibay uma dhicin dhul soomaaliyeed inay dhex joogaane dham xabashi leedahay sidii uu dhaxsiin u gaadhay ama uu ku dheelmaday maqale iyo dhirin dhirkii goondhar dhammaan hadalladiisii sidaayay u dhaacayeene jigjigana dhul soomaaliyeed ma ahayuu dhahoo yidhiye waa markuuna sharaftii dhannayd dhiibay wadarteede markaasuuna sharaftii dhannayd dhiibay wadarteede tu kalena dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo iyadana haddan ku dhexgeli oon dhambaalayaye soomaalidu dhul ay leedahoo dhinaca hiraana dhallinyarada jawxo ayaan ku dhex lugaynaysa oo inay u dhaafaan rabay dhacarkii ciiddooda wiilashaa dhulkoodii maqnaa dhiladu ka haysay dhabbahay marayaan shacbigay tilay dharabtiisu inii ay dhankooda ayaga dhibi ka soo gaadhi dhimarkaba ku haynoo midda aan iska dhoroofin dhanka bariga beshi ka til dhoobka baalad weyne dhaqan xumadii ay kula kacday kuna dhibaataysay wiilashaa dhulkoodii maqnaa dhiladu haysay ee aan dhib soomaaliyeed doombirkow sidanin dhankii ay u jeedeen intuu barugu si dhuuntay dhabbagalidi jidgooyaa intii loogu dhigay ciidan dhabarkana ka weeraray barhkale oo la dhaabaneeyey dhinacyada intay kala mareen dhamacda baruudda kuwii kula dhaqaaqayee dagaal dhuuca kaga yeelay dhiiggayaga itoobiya ayagoo ugu dhowaanaya farjanno kuwii nagu dhex dilay ee dhowrtanna cunsiiyey ciidankii dhannayee axmar dhab ugu duulaayey ayagoo dhammaan wada qabtalay oon midnaba dhaafin midkan gumac ku dhicin ee baxsaday ee dhan uga fiigay asagoo dham oon dartii gabay dhaqaaqiiba inta ay dhab siiyeen tigree dib ugu soo dhiibay maydkii dhintiya kii kale dhaawaca ahaana labadaba dhaqaaliyo axmar dheef yar kaaga qaatay dhagarta xawaadluu galiyo dhibabka xooggaale isagoo ku dhacdani hayuu dhool lahaa caddayni itoobiya inuu dhowaana dhibay amarkeeda dhanka wuxuu u aaday ahayd waana qowldhabaahe tu kalena dhegaysto haddaan ku dhambaalayaye fidaayiga dhulkiisa uu halgami ee u dhiididaya ee inuu xaqiisa la dhacay soo dhacsada dooni dhibaatada xornimo loo mariyo dhamacda loo jiiro inta uu cadceedaysu dhigi iyo dhooci iyo suudi ama uu dhul oomana ah iyo omas dhex qaadayo wixii dhas iyo boodh ugu duldhaca dhicinta ciiddiisa xasan cay hadduu ooga dhigo kuna dhaleeceeyey halgamaha dhankiisay ka tahay dheeman iyo luul xasan dhuxul hadduu cay ka dhigay taa kuna dhaleeceeyey halgamaha dhankiisay ka tahay dheeman iyo luule
tukalana dhegaysto wadan ku dhambaalayaye tigree dhaqan yaqaanooga dhagan weylkiisa intuu soo dhaqaq yidhi aduu aan dhanna u jeedsan isdharriijin daayiyo inuu dhagaadaygaye dhadhab intuu u soo kacay sidii ruux yar dhaaxamaysan dhankay ooga yeedheen intii uu dhaqsa u waaday dhul soomaalileedoo axmaar aan u dhaalan haysto oo uu tigree ugu dhex tegay gobol dhulkiisii ah markuu ku dhex martiyayo jigjiga waa dhaam uu leeyahay ee dhuubka hoos dhigan hayee kagana dhowrtaysan dhaqanka markuu muujiyu dhibay shaaraftiye inuu dhiciyayaa waajibo uu u dhiidhiyae haddaan dhirif ka hayn oo asagu dhigay xusuusteeda annagay dhulkanagii toho dhiigganow huriye aflagaada loo dhiibay iyo hadal dhimal weyn leh intuu nagula soo dhaco inuu dhabar ka noo saaro wixii kuba dharbaxaana garan eyayga dhaadhiciya tukalana dhegaysto wadan ku dhibcinayaaye dhiqle iyo xabashiyay tagfidu dhoorka uga buuxdo dharfood iyo habeedna leh asagoo taagan dhinaciisa dharfoodkii ku yaalkaa intuu dhaayahaa u diiday oo uu NLF dharkeedii iyo timahay injiri uga dhex buuxdaada waa war cadow u dhiibo ileen uu dhex yidhi gaale hadduu dhaaq la soo yidhi intuu dhowrsan kaari waayey oo uu dhimaal aanna qaban dhabar ka noo saaray wax u dhigan wuxuu nagu dhehee nagu dhaleeceeyey aniguna inaan eegadhahooyaan dharkow xidhaane wuxuu kala dhexiyey ee jigjiga kaga dhawaaqayay dheef iyo dhimaal male midnaba dhararaqdiisuye dameer dhuusay weyo kaliyo ay dharaarciyey ee dameer dhuusay weyo kaliyo ay dharaar